السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي كسو دواد مقال عصب maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay hal arin oo qofka daciifida aragga fog leh uu kaga hortagi karo haddii uu leeyahayna ay controleyso oo ay ka hortagayso in uu xaaladan ay ku sii badato. Arintaas oo ah baaritaan cilmiyeed soo dhamaaday la xaqiijiyay taas oo ah in cadceeda qofka ku dhacaysa in ay kaga hortagayso daciifida aragga fog. Dabcan markaan leeyahay cadceeda qofka dabcan meel banaan uu jooga cadceedaas ku dhacayso inkastoo fitamiin xataa laga helo fitamiin D ay kamid tahay haddana waxay kamid tahay waxyaabaha loogu hortago daciifida aragga fog sidoo kalena controlsho. Inkastoo arintan muuqaaladeen hore mar aan kusoo qaatay haddana inta badan dadka qaar waxa arkaysaa in ay dhahayaan ma awoodno ama dadka qaar oo kale qurbaha jooga in dhahayaan maadaama wadan aan joogno karantiin ku jiro caruurteena oo kale banaanka uma bixi karno laakiin waxyaabahaas oo dhan marmarsiyo ma noqonayaan oo haddii tusaale ahaan Soomaaliya oo kale aad joogtid oo badanaa karantiinka iyo koronaha badanaa waxyaabo saas oo kale ilmaha saameyn ay ku leheen marka waxyaabaha sameyn kartid waxay tahay inaad banaanka u bixisid inkastoo dadka Soomaaliya jooga xitaa ay dhahayaan caruurteena inta badan meel baarki ama meel la geeyo ma lahan taas lafkeeda waxa uu marmarsiin ma lahan qofku wuxuu awoodaa inuu banaanka albaabka u geeyo badanaa Soomaaliya waxay leedahay geedaha hoostooda inuu geeyo cadceedaas ay ku dhacdo inkastoo arintan familiyada Soomaalida ay aad u kala duwan yihiin waxa arkaysaa qoys badanaa caruurtooda banaanka ka celiyo ayagoo markaa ula jeedo inay daryeel fiican siinayaan ama oo dhibaatooyin badan oo kaga imaan lahayd banaanka inay ka difaacayaan haddana nasiib xumo waxaa arkaysaa in daciifida aragga fog caruurta inay kusii badanayso oo ilmaha guriga lagu haayo ilmaha banaanka la isaga daayo iska ciyaarayo oo badanaa il goolo lahaan xataa waxaa arkaysaa ilmaha banaanka loo daayo in daciifida aragga fog aad u yar tahay sirta ka dambeysa midaan oo ah in uu canuga uu xaq u leeyahay inuu banaanka u baxo si uu daciifida araggiisa fog uu kaga hortago oo u yeelo xaaladan daciifida arag fog sababtoo canugan aad guriga ku hayso inta badan oo aad dhaysi banaanka dhibaato u keenayo oo aad xataa waqti aadan u siineen waxay keenaysaa marka inuu mar walba uu mobile ama computer iyo waxyaabaha isku mashquuliyo oo si degdeg ah daciifida arag fog ay ugu timaado oo halka isla heed canuga daryeel oo waxyaabo badan kaga hortay inuu dhibaato adiga aad u horseedid marka arintan waxaan jeclaan lahaa in ilgooniya loo lahaado waa arin la hubo oo daciifida aragga fog ka hortagayso wajaan arimo kale oo ka hortagaya daciifida aragga fog in wali baaritaan cilmiyeed ku socdo marka waxaan jeclaystay maadaama bulsho Soomaaliyeed loo soo gudbinayo in aan soo gudbiyo waxyaabaha la xaqiijiyay oo cilmi baaris maatay inaan idila wadaago midaana waa arin muhiim ah oo la soo xaqiijiyay marka caruurtaada haddii aad jeceshahay in daciifida arag fog kaga hortagtid arintaas samey oo saacada ama waqti u yeel in ay banaanka ay ku ciyaaraan ama iftiinkaas uu ku dhaco laga yaabo in dhigaysid banaanka dugsiga aadaan markay guriga ka baxaan ee dugsi aadaan waa waqti aad u yar dugsi ama guriga u dhaxeeyo laga yaabo in dhigaysid wiilkaygu uu dadaalaya mise gabadheedu way dadaalaysaa waxbarasho ku mashquulsan tahay laakiin waa qasab in aad waqti u siisid inay banaanka ku ciyaaraan ama banaanka ay fadhiistaan cadceedaas ay ku dhacaan meel fog oo furan in ay ku ciyaaraan haddii xitaa aysan jirin meel ay ku ciyaaraan oo banaanka ah balkonka iyo meel yaroo guriga qayb ka mid xitaa oo hawo furan leh way ku filan tahay intaas ayaa muuqaalkeena kusoo gabeynaa haddii aad muuqaal ka faa'iidaysto like noo saar waxaan idin rajaa caafimaad iyo dhafiyo